السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Soomaali maxamed meel walba aad joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Xakan nagala socotaan waa Ridwaan arka qofka in la hadlayana waa laftirkiisa. Kulli maanta Soomaali maxamed waxaan doonayaa in la wadaago arrin yar oo aniga ahaan xakan khaasatan isoo fadhisiyay amba isoo kiciyay kulli YouTube-ga in badan ka maqnaa in badan xumaan soo galin. Arrinkan maanta usoo fadhiistay shakhsi ahaanteeda saad marka hore adiga baratay waxa inaan amba baraag soo galiyo amba short film yar soo galiyo amba qalbi wax soo galiyo laakiin wali shakhsi ahaantayda waxay ugu dambeysaan oran kara wan year ka hor inaan soo fadhiisto on ka hadlo wan fiidiyoga ugu horeeyay dib u raacdaan aan soo galiyo mid jirta waxa weeyaan xaqni soo fadhiisto waxa weeyaan waxa jirto Facebook amba baraha bulshada inta ku xiran saad aragteen u badaaragsan oo leeyahay waxay soo dhigtay waxa qamar sugaali oo isaguna leeyahay waxa wala soo dhigtay horta maxamed cabdilaahi ugbaan maxamed cabdi oo taqaanaan idinka sahantiina u badaaragsan ya maxamed cabdi oo idinku taqaanaan qamar sugaani aan baad u taqaanaan maxamed wardi waxaan maanta ani xaqii soo fadhisay aan doonayay inaan ka hadlo inaanay horta labada qof amid walba sidaantooda isku garanno amba wajahantooda alxamdulillah wanaag mooyaan wax xun maanta oran karo waan kala kulmay ma jirto mid walba aan sidiisa u garanayo mid jirta waxa weeyaan maanta horta baan soo kicisa ka soo fadhisay Soomaali baan doonayaa mid ogeysiyo title-ka saad ku aragteen ma aha fikiis raadsiga ma inay dadku ibataan iga ma laakiin waxa iga tahay in xaqiiqda dhabta dadka ogeysiyo كل حاجة نتكلم دونتان وبعد عرفتن فيسبوك كده بنت هل كان واحد كارك دونتان ولكن محمد وردي أم بقمر سجاني أم محمد عبدي أنتي بس على تقنان واحد شرطه تاسوح يسوي في السيما تاني جو كجبنيو أو يجي أنا فيسبوك يعني له براه بالشدة سكت حياة عيال اللي مسجي وحن ساقر يدي وحن ساقرته لكن تذكره ويجي هاي برتاس wax khaldan bulshadu gudbineen muuqaalka ugu la yaabka badan leh meesha maanta soo fadhiisaan baan doonay inaan ka hadlo waxa weeyaan in la yarda awta ma jecel horta daw ciriiriyaan helay meel ciriiriya god yaro ciriiriya ya baan helay ciriiri dirqi baan ku geliyaa dirqi عمامين بعد شدة وتعب بانكو قليا درغي يا مركاسي دكيسا قبدي مركاسي دكيسا حاج كلي وهذه لا عرفتن ارتميد بانو قدبينيا برها بالشدة سببتها نو قدبينيا وحيتين شينا عناس ولي بس اتاك هانا عن الله هذا horta ummad waxay bilaadanka dad isqabo dad aan isqabin dad jecel almin qof walba dadka waxba iska soo galo waxaas wax waara ma wax walba wax meel ku jooga qofka xitaa hadii uu calafku iskiin siiyo waxa in kala kaxayn karo waa wad hadaan wax kale in kala kaxayn shunacuna sidoo sheegay horta waa qof gabadh ama xaas leh maanta Soomaali maxamedi qofka ogal inta naagtiisa meel la soo dhigo amba qofka ogal gabadha ogal amba inta ninkeeda la soo qaado meel la soo dhiga lahayo okay mashina cunay maanta samaysantiisaas isku madhow inta dooniga weyn laakiin saan aanu arkay maskax ku filan ayaan haysan war 200 oo reaction oo heesa iyo wax walba wad ka bixin kartaa laakiin family dhisan qoysas dhisan miyay adiga aqli ahaantaada ay kugu soo wajahday inaad fiis ku hesho amba wax ka bixiso war ma kulatay maanta anigaygaas dad xaaskayga soo qaadato amba hadaan qof aad soo qaadato family-gayga oo caydo in bari ka maalin meel isku yimano in si rajaysan wax ku weydiinaan buu kula hadlay waxaan oran lahaa wixii waa wax aan maanta raad la raaca lahayn isagii sheegay marka hore Facebook walaashin kubad iyo Facebook kale walaalkeen qamar sugaani labaduba yihiin wax beena maanta lama oran karo hebel baa isticmaaliye hebel ayaa isticmaalso oo wax sawir la soo qaadanayo qoraal lagu soo dul qorayo dal soo dhigayo
laakiin bal Shiina Cune maxay ka tahay isagu intuu bareed u soo fadhiistay inuu iraahdo waxaan sameynaysaa iyo waxaan u sameynaya waxaan u arkaa maanta saantiisi inuu taagan dadaadii meedka meedhisa ya maanta raadsad kharash ka raadsa YouTube-ka lacag ka raadso maanta anu de inta soo boqol oo aan wax ka bixin karan haya laakiin sababtu maxay tahay inaan wax ka faa'iideyn baan maxaan ka faa'iidaya intaan qof soo qabtay inaan aayo adiga laftirkaaga aan jir maanta wax iga soo galay laakiin sababta aniga maanta isoo fadhiisay aanba fiidhowga aan doonay inaan uga hadlo wax weeyaan waxa la oran karaa waa qoraal waa been ummadda bulshadeeda inteeda badanna way iska garanaysaa inaan waxaas wax aqli gala aan ahayn laakiin adigaaga muuqahan inta soo hoos fadhiisatay aad leedahay waxaas jiro oo waxaas tiri wallahi waxaad ka faa'iideysaa ma jiro muuqaalkiisa dib aan uga noqonahay lilo dhageysto samsamay balisaar samsamay balisaar hawsheeni weeye balisaar leer daawada haddii aa hore iiga maqashay warwar ka dambeeyo baa ba'ay maanta waxaan ku hayaa hees ka dambayso baa ba'day shalay haddii aynu reaction ka bixinay Ugbaad Aragsan oo tiri dubashiish le baan helay maanta waxaynu reaction khalqalkiisa oo ka bixinaynaa qabar sugaani oo leh dow ciriiriyaan helay isaga aqli ahaantiisa markaan kula maskaxdiisa kuma filno wuxuu arkay isagoo inuu reaction bixinayo laakiin ay tamayo ayaanu nafaantiisa ka dhaadheen xaniisu de tusaalaha gacmiisa lahaa iyo afkiisa yaa dimadii qof walba waxa laga garan karaa de wala turjuman karaa Soomaa isagu wuxuu arkay inuu reaction wado shalay reaction waxaan ka bixinay heestii Ugbaad Aragsan ay soo waday miraheeda hordhaca ay barteeda Facebook-na kula wadaagtay horta reaction bixisa ani ahaan rabaan hande aan uma arki karo laakiin ay aflaaga dahaan baan u arki karaa xurkeedu ahaa dubashiish le baan helay midaan fiidkii daalayn oo ilaa waagu dilaacayo aan ka dhaaminayo baan haystaa dayaca ibaday midda weeyay baa yimi kulay wal arkasan de maanta Shiina Cune aflaagaadada oo cadwado waxaan farnaan waxa kana uga diraya anoo jeclaan fiidiyowgiisa ku sii dheeraado war maanta hadda adduun raadinayso si kala ku heli kartaa aanima hadda doonayso si kala ku heli kartaa hadda doonayso bulshadu inay ku daawato si walba ku heli kartaa laakiin taa aan waxaan ku ogay radwaan ahaan iyo maskaxani raan ahaanteeda inaad godob dhiganayso meel walba sababtoo ah ninna yeeli ma inaagtiisa in la qaayo bari ka maalin markaad ka soo baxdaan ba ilaahay meel inagu kana siiyo intaad nooshaan ba intuu qofka kale nool yahay degarin kala wadi mayso anigaygaas dad aflagaada family-gayga cid ka tirsan ah de markaan isoo aragno deena kala wadi mayso sababtu ku kaliftay adigaagas maanta yeeli maysid waxa jirta fiidow aaminsanayd oo ahaa anu gabadhayda weligay social media ma keenay wax saasayada inaan arkay inaan smoojin Allah yaclam laakiin horta inaan xasuustaan malaynaya ma keenayo waa horta keen aan baa keen qof walba habuulay maanta anigaygaas YouTube aniga furtay muhiimadeedu waxay inaan YouTube furto qofka wuxuu ku han weeyno fanaan noqdo fanaanimadiisa adigoo hadda doonta xaaslo carruur wadiga da YouTube samaystay qof walba wuxuu ku han weeyay inaad tiraado ma qof walba xaaskiisa iyo gabadhiisa qaba ma keen kartid wad ogeeydeeno ta aad Shiina Cune wuxuu ugu dheeraya dadka qoysas kale fiidiyowyo bariga waxa jirta la isla dhaxyaa jiray oo ahaa CK kale odogeydin gabadhiisa oo imanisay taas balaarin soo dhaweyn balaarin sameyn kara maabti inaan abti ku hay ma soo dhaweyn karo wada soo dhaweyn kartaa laakiin maxaad soo dhaweyn kartaa inaad kamarad qaadato la cararato tiraado iga duubayo waxaan galinayaa YouTube mid ahaantaan uma arag laakiin waxaan u arkay dad kamaradna iska dhigta meel waxna iska dhigta qofka shakhsiyaanta soo dhaweyso qaabisho bis almaanta markaan doonay inaan qof wax wanaag u sameeyo waa inaan ka fikirin maxaad ka dabacanaysaa aad soo fikirta sababtoo ah oo adiga raadinayo inaad ka duubto qofkii social media soo dhigto muhiimadeedu waxay tahay inaad qofka wanaag u galin laakiin aad adigu isaantaada muuqaalada YouTube ka gashato amba wuxuu ku qarxo amba waxaad bulshadii aad u gudbiso anu horta uma arko intaas qof reaction bixisa jirto
waxaan ugu xidhanay ninka la yiraahdo Idris Cabdi iyo Siika video walba soo dhigan daawada sababtoo ah waa dad ka hadlayo waxaan dadka isqabo amba dad isku faraxsan amba dad jecel amba dad familia aan kala dhaxgalin reaction waxay bixinayaan adiga ka dhacayta walaayga sida laakiin reaction ataagay bixinayaan oo la karamaanta Siikayntu soo istaagay ay qofka caayay ma jirto amba wax yar khaldan dadka farta ugu fiiqaato wixii khaldanaa khaldanaa laakiin adiga haantaada waxaan u arkay in waxaagu yihiin attack caadiya dad badan waxay leeyihiin qamar sugaan inuu soo jawaabo maahan war qamar waa la duqeeyay ma waxa leedin ku samra kulli ma jeceli an asxaabta qalgeena video ku sii dheeraado laakiin anigu mid baan ii sheegay bartan views ma soo fadhiisan amba like badan inaan ku helo ama comment badan inaan ku helo laakiin waxaan soo fadhiistay in aan ii sheego walaalkay Maxamed Wardi oo arkaysan inaanu lahayn Facebook waxaan ii sheegayaa walaashay baad aragsan inaan iyaduna Facebook shakhsiyan ahaan aan u lahayn waxaan fariin u dirayaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaad wanaag ka faafisaan oo xumaanta aad iska disaan waxba ku taramayso wallahi views wax yar aad ka helayso laakiin waxa ka daran isku dhacaad keenin karto wax allaali wax ku faa'iido ma jiro ko Facebook-yada imka aad samaystay wajahantaada kugu ma keen like badan aad heshay wajigaaga ma qof la garanayo oo kalumaad waxaagii almaxnuusan u arkayaan inaad qofkaas u samaystay Facebook-yada aad arkaysan inay yihiin muhiimadu Facebook-ka ku kaco maanta markaan aan wanaag sameynayay xumaanta dhinacna wala geega maxaa xumaan kara wanaagga sameynayso xumaan markaan sameeyay maxay keeni kartaa inaad eegta walaalkay shiina cuna alaan challenge sagnayna aflagade fariintan u diraya waxay tahay war maanta هذا أنا كو حقير معي بالشبه ده ما يكون حلنته بالشبه بدينا بحي حقيقة وكذب بس ومع الدين كرتد أديكم لو بدو وقفيني في السبوع دين لكن أغلى كوسي حوجي إن تعالى كفكرة أنا تضد كفكرة تطبق كل حنا كتعاونية سما وين المحيك وقع عن سكرته ما إن سكسوب جلسون تان سكسي حلم يوم ما تيان حياة أن أصحابته حن فهمت عن حلقة وصوف لستي أيها تاسي marka insha Allah Soomaali waxaan meel walba joogtaan horta anu waxaan hadalkayga ugu dambeeyo ku soo gabagabeynaya inaanay dadkaas Facebook-yada lahayn ninkaashiina cunay waa falagaado aad uga dhan ahna labada qof u soo jeediyay inta wixii ka dambeeyana muuqaalkayga cid soo gaadhay iyo cid kale waxaan iga codsanayaa inaad si share karaysaan hadda channel ku cusub subscribe intaan video ku xigo kul doon waxaan iga tagay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.